وأدين هم بلينا يا وده شقين توناكسن وأدل الذين ganacsatada Soomaaliyeed oo aan aaminsanahay inay laf dhabarta u yihiin horumarka dalka wax badan dalkan u soo qabtay in badan aan u mahad celin laakiin aan aaminsanahay in wada shaqayntiinu ay horumarka dalka wax ka tari doonto hadafka ugu weyn ee dawladdeenu ay leedahay waxa ay tahay sideeba dadkeenuna dawladda u aaminaan duniduna dawladnimada Soomaaliyeed u aaminta si taas ay u dhacdo waa inaan leenahay nidaam dhaqaale oo hufan nidaamkaasi waxa uu ka bilowdaa horta in dawladda wax lagu aamini karo ganacsatada Soomaaliyeed waxa ay dawladdu ku aamintay in la og yahay meesha la geenayo sidaas daraadeed ayaa laga rabaa in aan aqbalno intaanan dunida kale u gudbin horta oo aanan cid kale gurigeeda ugu tagin oo aanan la hadlin inaan gurigeena marka hore nadiifino dhisidda hay'adaha dhaqaalaha marka waxay ka bilowdaa dhisidda dawladnimada dhexdeeda waxaan aad ugu faraxsanahay marka in hadda aad maraysaan mashruuc ay ugu muhiimsanaa oo ahaa sahlidda ama fududeynta ganacsiga oo aan isleeyahay wax weyn ay ka tari doontaa hamiga weyn aan ka qabno dawladnimada waxaan aad ugu faraxsanahay in wasaaradihii qaabilsanaa arrimaha dhaqaalaha wasaaradaha qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kalluumaysiga iyo kulligood ay ka soo baxeen howlahoodii oo hadda dawladda Soomaaliyeed ay hiigsanayso in muddo dhow aan soo gaarno tallaabadii ugu horeysay ee deyn cafiska macnaheedu waxay tahay marka bangiga adduunka ee hadda lacagta adduunka ee dawladda Soomaaliyeed u furato waxa ganacsatada Soomaaliyeed u furmaya hay'adihii horumarinta dhaqaalaha oo maalgashiga Soomaaliya ku sameyn lahaa oo albaabadeedu ay uga xirnaayeen shuruudihii hor yaallay oo dawladda Soomaaliyeed ay ka soo baxday shuruudahaas waxa ugu waaweynaa inaan annagu isku filnaano in waxana soo gala aan kharash karayno inaanan deyn gudaha iyo dibadda aanan gelin in waxana soo gala meesha aan geeyno la og yahay in lacagti bacda lagu qaadi jiray lagu bedelo warqado shaqeynaya in isla xisaabtan uu jiro waa garan karaa in weli aanan dadka Soomaaliyeed oo dhan gaarsiin shaqada socota laakiin tusaalaha ugu fudud waxay tahay maalintaan nimid ilaa hadda dawladda ciidayna kula ma jirto markaan nimid $100 milyan oo dollar lagu lahaa dawladihii naga horeeyay kuwaasoo ah mushaar la bixin waayay ama cid qandaraas la siiyay oo lacagteeda la siin waayay waa soo ahaa wax aan loo maamulin sida loogu talagalay shuruudda ugu horeysa ee nidaamka maaliyadda dawladnimada si dunida ay noo aqbasho waxa ay tahay inaad og tahay in dukaan marka aad tagto aad wax ku iibsan karto kaliya wax aad haysato dhaqaale isku miisaaman in marka dawladdeenu ay ka soo baxday shuruudihii ugu waaweynaa oo aan hadda marayno meeshii ugu wanaagsaneed iyo in aruurinta dakhliga iyo canshuurta ganacsatada Soomaaliyeed ay bixiyaan ay marayso meeshii ugu sareysay waxay ka turjumaysaa in ammaanadii dawladnimada ay kor u soo kacayso ma joogno meeshii loogu talagalay macnaheedu waxay tahay waa inaan ognahay lacagta cidda aan ku bixino meeqa shaqaalaa noo joogta meeqa ciidanaa noo jooga xaggee bay joogaan sidee baa loo bixiyaa nidaamkee bay martaa marka la bixiyana xisaab noocee ah ayaa la geliyaa halkaas maadaama marka ay ahayd qayb shuruud weyn sida keliya ee aan adeeg ku bixi karnana ay tahay inaan dhaqaalo leenahay sida keliya aan dhaqaalo ku heli karno haddii aan dawladnahana ay tahay inaan taageerno ganacsatada Soomaaliyeed si ganacsigooda ay u kobciyaan hawshan iyada ah
in la fududeeyo ama la sahlo ganacsiga waxay tahay in dhaqaalaha kor loo qaado waxay tahay in shaqooyin cusub la abuuro marka dhaqaaluhu kobco dad Soomaaliyeed ayaa shaqo helaya shaqo markii la helo shaqaasi abuurmaysa waxa kale taa macnaheedu inaan meeshii 190 kan ka joogno aan kor uga soo kacno oo nala aqbalo inaan nahay dawlad hore u soconaysa waxa kale oo aaminsanahay inay wax ka tari doonto adduunyadu inay badeecooyinkan hesho waa in ganacsatada Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyaa in badeecada aan halkan ku hayno dunida loo iibgeeyo waxa kale oo hadafkeenu uu yahay in la yareeyo wax walba oo dibadda laga soo dhoofinayo oo la isku dayo wax walba oo aan yeeli karno halkan ku samaysan karno inaan halkan ku samaysano oo maanta aan bilaawno dadkeena inaan tababarno maanta aan bilaawno warshado yaryar inaan dhisano maanta aan bilaawno kalsooni annaga aan isku filannahay inaan gaarno dawladda iyo ganacsatada marka waxaa laga rabaa inaan isu fiirino wixii wasiirku ka hadlayo trade balance uu yeerayo aad aragtaan numberkaas sidoo uu kala durugsan yahay oo la rabo inaan soo yarayno waa inaan marka ganacsatada u fududeynaa ganacsigooda ku dhiirigelinaa meesha aan ku dhiirigelin karno ay arkaan in dawladoodu iyagu ay u adeegto iyaguna inay fahmaan haddii ay rabaan in dhaqaalahoodu kor u kaco waa inay haystaan dawlad u adeegto waa inay ganacsatada Soomaaliyeed aqbalaan meesha maanta ay joogaan kor uga ma kici karaan haddii dawladooda aanay kor u soo kacin waa inay dawladda Soomaaliyeed aqbashaa inaanay meel gaari karin haddaanay ganacsatada ganacsiga u fududeyn aqbalina inaan u baahannahay dhaqaale laga maamulo ganacsiga suuqyada ganacsigu inay yihiin kuwa dhaqaalaha Soomaaliyeed mustaqbalka maamulo ma rabno dawlad Soomaaliyeed oo wax walba iyadu gacanta ku haysato mustaqbalka waxaan rabnaa inaan ku caawino shuruucda idin fududeynaha ganacsiga dawladnimada idin fududeynaha ganacsiga leedinka celiyo inaan dawladdu nidaamkeedu aanu idin dhibin dalka musuqmaasuqa lagala dagaalamo ganacsatada ganacsigeedu kor u kaco markaas dawladuna canshuur helaysaa dalkana shaqo loo abuurayo waa talaabo bilow ah waa soo dhaweynaya hadii la yiraahdo waxaan rajeynayaa marka sida hawshan aad u qabateen in ay noqoto talaabooyin wasaaradda waliba ay qaado wasaaradda maaliyadda waxa ay qabato banaanka ay soo dhigto antidhowrka guud cidda uu soo baaro oo khalad lagu arko banaanka la soo dhigo wasaaradda kalluumaysigu waxay qabato meel ay shacabka Soomaaliyeed ka galaan la soo dhigo waa in dawladnimada aan shacabka Soomaaliyeed u daadijinaa waxaa dib u habeyn ku socda arrimaha dhaqaalaha arrimaha ganacsiga arrimaha siyaasadda arrimaha amniga iyo ciidamada waan rabno askari walba oo Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliyeed u shaqeeyo inuu xuquuqdiisa helo mid walba oo la diiwaan geliyay oo dawladda Soomaaliyeed u shaqeynayana dawladda Soomaaliyeed ayaa ballan qaadaysa mushaarkiisa inuu qaato hal bilna aanay ka maqnaan qof waliba oo dawladda Soomaaliyeed u shaqeeyay maalintii la doortay ilaa madaxweynaha ilaa haddana qof waliba ciidan la'aanba waa la siiyay mushaarkiisa haddii uu ka soo baxay shuruudii loogu talagalay ciidamada iyo shaqaalaha rayidka dawladda Soomaaliyeed kulligood hal nidaam ay ku diiwaan gashan yihiin waa la og yahay qof waliba meesha uu ka shaqeeyo sidoo uu ka shaqeeyo diiwaangelintu markay dhamaato shaqada kale waxay noqon doontaa ma joogaan meeshii loogu talagalay mashruuca isla xisaabtanku waxa uu noqon doonaa mashruuc dheer oo socda laakiin xuquuqdeena waxay tahay in qof walba oo dawladda u shaqeeya askari iyo shacabba uu helo xuquuqdiisa qof walba xaquuq la siinayana ay noqoto qof dawladda Soomaaliyeed u adeegaysa waa mahadsantiin